بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashirkan wuxuu ku saabsan yahay dadka haysta computerka waxay isticmaali karaan HTML haday isticmaalayaan ama ay website design gareynayaan notepadka oo editoraan isticmaalayaan iyo browserka ama Chromeka ama Google Chromeka ama Firefoxka waxay isticmaalayaan inay ku rangareeyaan ama ay ku arkaan outputka balse dadka isticmaalaya mobilada aan haysan kombiyuutaro waxay u baahan yihiin meel ay markaas xoolaha ku isticmaalaan ama ku tijaabiyaan ama ay ka akhristaan casharada HTML-ka code-kina ay ku qoraan sidaa darteed waxa qofku la soo dagayaa application la yiraahdo Solar Learning application-kaas ayuu la soo dagayaa wuxuu application-kaas u baahan yahay code marka ugu horeysa waxa ku galaysaa email-kaaga iyo password-kaaga ama email-kaaga ku integration ku sameynaysaa kadib application-kani wuxuu ku fiican yahay dhammaan languages-ka programming languages-ka dhan waa leeyahay waxaana ku sameyn kartaa oo kale waa ku tijaabin kartaa waana ku ku practice-gareyn kartaa code-kaagii waa ku qori kartaa waana share gareyn kartaa programkani wuxuu ka kooban yahay languages badan oo marka aad u badan arkaysa kor HTML Python halkan barashada HTML-ka data scientist hada noqotid full stack developer hada u baahan tahay dhammaan wixii language plus Java Kotlin C# Python waxaas JavaScript C language PHP Ruby Swift dhammaan programming language dhan baa ku jira halkan waana ka baran kartaa casharadii waana ku tijaabin kartaa markaa waa ku qoran kartaa inaga laakiin waxa hadda ka dhiganaa maadada HTML-ku marka halkan waa ka baran kartaa oo qofkii raba inuu HTML barto kaliya wuxuu isticmaal ku dhufanaya halkan HTML fundamental ku dhufanaya koorsadii waa tan HTML basics iyo challenges iyo HTML5 uu qaybsanaa marka meeshaas ku dhufanaysaa HTML view okay halkan casharada hore soo HTML basic HTML elements tan waa loo garaysan tahay ilaa tan soo dhamaysid tan ma gaari kartid creating your first HTML blog inta dhammaan quiz HTML adoo isjaabin kara waana ka baran kartaa waana wuxuu ahaa ku tijaabin kartaa okay hadii aan rabo inaan marka tijaabiyo code-kayga ama aan wuxuu ahaa hadii aan rabo inaan tijaabiyo code-kayga ama ka soo dasa u dhufatid oo ka soo qaad halkan wuxuu weydiinayaa su'aal paragraph waxa asaas la yiraahdaa try it self ku leeyahay adiga isku day continue okay inaga marka waxaan ka rabnaa halkan inaad ku tijaabisid code-kaagii ama marka halkan joogtid inaad code-ka qodidba marka meeshan ay ku qoran tahay code oo hoos qoran tahay waa ku dhufanaysaa halkan waxa ku arkaysaa dad badatay oo maanta soo dhigay code qoray kadib soo share gareeyay adiga marka waxa ku dhufanaysaa calaamadan plus ta halkan qoran waa ku dhufanaysaa kadib language karti inaad wuxuu ahaa meeshan ku tijaabisid web baan rabaa soo HTML waa web way web baan ku dhufanayaa kadibna waa kan halkan waxa ku soo baxaysa waa ka HTML CSS JavaScript iyo output ku soo bixi lahaa HTML kan ku qoraysaa waa kan casharadii halkan waa title-ka soo title waxa ku qoraya ka soo qaad my page waa inta soo qaadanay HTML meesha ka furnaa ilaa meesha ku xirnaa u jeed soo kadibna body-gi waa kan meeshii body-gi inter baa leedahay halkan aan leedahay h1 so kadib h1 xir okay output-ki marka qoro meeshan ku rangareynaysa output-ka ogaanaysa xagee weeye meeshan ku qoran tahay output waa ku arkaysaa ku soo dhawow soo artid browser-ka kana ku noqonaya hadii aad CSS ku daraysid waa kan halka ka daraysaa hadii aad JavaScript ku daraysid halka ka daraysaa HTML-ka daa qoraysidna waa kan okay HTML ujeeda casharka maanta soo qaadanay muxuu ahaa qoraal kale hadaan qoro halkan qoraal ku qorto laakiin output-ka maxaa soo baxaya faris ku xiriirsan soo ahayn laakiin hadii aan rabo inaan sameeyo waxa sameynaysaa BR taada wuxuu dhexaysiinaysaa BR kan casharka maanta soo qaadanay way BR okay output soo inuu noo kala saaray marka easy marka dhamaysatid ba waxa casharka hadii aad xataa si aad
waa duubi kartaa halka meesha qorto record maartay record calaamada hoos ku dhufanaysaa waa iska duubi kartaa markaas waa kan adoo duubi karaa codka ku duubaysaa waa record garan kartaa okay videos ku duubi kartaa waa kala qadaa videos ugu dhufatid videos mar aka iska duubi kartaa adigu markaa waxa ahaa isticmaalaya okay sidoo kale markaa kadib markaa dhameysay cashirkaaga si markaa loo hubiyo oo markaa macalinka uu hubiyo ama macalinka uu tustid waa inaad tiraahdaa share halka ku dhufataa share tiraahdaa okay wuxuu ku leeyahay si marka waa inaad magaca save garaysaa save waa leeyahay magaca waan u bixinayaa magaca ka soo qaada Cabdirashiid oo kale kadibna waxaan leeyahay save garanaysaa saving sameynaya danna waxaan leeyahay waa uu share garanaya sug saving buu wali wadaa saving oo soo qorkaysaa internet buu baahan yahay mar walba waa inaad internet heshaa oo markaa wuxuu ahaa ama internetka furataa haddii aad aragtid inaad qodhid ama isticmaashid programkaas ama wuxuu ahaa applicationkaas waxaa kasoo degsanaysaa store playga ama play storeka haddii aad markaa wuxuu ahaa isticmaalaysid android haddii markaa aad isticmaalaysid android maaha kale iOS ka isagana waxaa kasoo degsan kadhaa store playga okay waa kan waa ii save garaysan yahay Cabdirashiid hadda waxaan leeyahay share marka waa Yusuf share garaysnaa okay waxaa khadka culus على هذا savingkii ayuu markaa wuxuu ahaa isticmaalaya okay saving isaga automatic dhow wuxuu ku sameeyaa hadda saving buu leeyahay wuxuu ahaa khadka culus marka haddii markaa wuxuu ahaa share tirahdid whatsappkii iyo markaa meesha aragtid baa ku diraysaa oo markaa ku sii share gareyn kadhaa adigoo markaa wuxuu ahaa u diraya groupkii waa kan uu ku safrayay Cabdirashiid Ismaan kor buu ku soo qoray make public waa dhigi kadhaa si loo arko meesha dhexdeeda okay waa ka share markaa saa ugu dhufto wuxuu saaraya whatsappkii aan ku diri lahayd ama meesha aan ku share garan lahayd kadibna whatsapp ku dhufanaya whatsappka ku soo baxaya qolada markaa u share garan lahayd waa u diraysaa hebel abshir baalkii groupka artikaas ku dhufanaysa ka soo qaad kadibna waxa la u share garay sida caadiga ahayd ku share garanaya ama toos ayuu ku geenaya markaa save garaysi kadib weeye waxa ku dhufanaysaa share kadibna wuxuu ku weydiinayaa groupkii ama meesha whatsappka ku save garan lahayd ayuu ku sheegaya markaa kadib groupka ku soo share garanaysaa magacaagana uu ku qoran yahay automatically marka la arkay insha Allah haduu ilaahadmo marka dadka haysan computer wax isticmaali karaan applicationkaas programkaas la yiraahdo solo learning ama solo learning bal yada hadii marka aan aragno suuqiga waa kan desktop ku saaran halkaas solo learning saas u egyahay ama loogadaas wataa applicationkaas u tagsanaysa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.